بسم الله الرحمن الرحيم عشركن وعشركين امتحانها maanta waxaan dhiganaa derivative function derivative function ayaan dhigan doonaa derivative wuxuu ka yimid waa derivation markaa derivative markaa dhahna waa hawl la qabanayo function maxaan idhi waa faansaar ama hawl wey hawl la qabanayo halkay ka timid lagu celinayo weji markaa derivative maxayna waxan aan ka shaqeynno halkuu ka yimid ku celi weeye unitkan laba un buu ka kooban yahay waa nii sheegay labadaas maxaa derivative iyo integrate buu ka kooban yahay marka insha Allah waxaan ku dhigan doonaa casharkan power rule baan dhigan doonaa qaab aad iyo aad u fudud laba qaacido leh laakiin qaacidana marka hore marnaata kalena limit baan ku dhigan doonaa insha Allah haye u fiirso su'aasha ugu horeysa d over haddaan dhaho d over dx baan dhihi equal c waa constant eber bay la mid tahay. Haddaan dhaho d over dx 5 equal 0 bay la mid yahay. Haddaan dhaho d over dx waa derivative minus 7 equal 0 intaba 0 bay la mid yahay. waa markuu yahay maxayna constant markuu yahay intaba eber bay leeyihiin constant hadii jeer waa 0 buu ku soo baxayaa haye tusaale haddaan ku siiyo si graph ahaan f x equal 8 baan dhahayaa 8 markaan dhaho aan sawiro graafka halkuu ii marayaa y-da halkaas ii marayaa waa 8 marka maxaan dhahayaa y is equal to 8 baan dhahayaa laakiin x-tuna maxayna waa 0 saa ogo marka x is a 0 markuu yahay constantga wey waa ila fahantaan mal f x maxaan dhahayaa marka waa 0 hadii jeer markaan sidaa dhaho d over dx baan dhahayaa fx maxay la mid tahay ma dhahayaa fx ma dhahayaa bas oo derivative intaasay la mid tahay waad fahantaan u malaynayaa haddaan dhaho d over dx is equal to x square aan dhaho soo saar lee dhaho maxaan isticmaalayaa eg power of rule baan isticmaalayaa u fiirso power of rule qaacidadaan isticmaalayaa maxaan dhahayaa d over dx oo derivative n x the power of n baan dhahayaa x the power of n yaa lamida maxayna n x the power of a minus 1 baan dhahayaa intaas waa qaacidada aan dhigana maanta casharkeena marka u fiirso maxaan dhahayaa inta maxaan haystaa labaan haystaa intu hadda laba ii tahay waa 2 dii xagga dhig x 2 minus 1 baan dhahayaa marka kala jar maxaan helay waa 2x baan helay 2x bes sabab intaaba waad fahantaan u malaynayaa casharkan aan dhigan doona maanta u fiirso d over dx haddaan dhaho n intaasi qaacidadaan isticmaalna weji n x n minus 1 baan dhahayaa n minus 1 haye d over dx x the power of 3 d over dx derivative x the power of 4 d over dx x the power of 5 intana laydii soo saar marka waa derivative aan dhiganay qaacidada maan isticmaalaya oo fiirso maxaan dhahayaa 3 haye x intana maxaan haystaa waa 3 ka jar hal waa 3x the power of 2 baan haystaa ka kale loo fiirso bes waaba intaaba ka kale loo fiirso maxaan dhihi kana inta maxaan haystaa waa 4 baan dhihi marka 4 x 4 minus 1 baan dhahayaa marka maxaan helay 4x the power of 3 u fiirso markan waa markuu open yahay yaa qowska igu xidhan wuu furan yahay hadda markuu close yahay laakiin si kale aan uga shaqeyn doonaa isla casharkan wuu noogu jiraa insha Allah u fiirso 5x the power of 5 minus 1 baan dhahayaa equal 5x the power of 4 baan dhahayaa waad fahantaan u malaynayaa uu fudud yahay casharku isagoo limitana oo sidan uu soo bixi doonaa wuu noogu xigi doonaa casharka insha Allah u fiirso markaa haye haddii la dhaho d over dx 4x the power of 7 markaan u fiirso markii hore open buu ahaa kan laakiin wuu xidhan yahay close way adiga arkaya waa close markasa qowsku ku xidhan yahay close way caadi buu xidhan yahay marka markuu yahay sidan yahay maxaan isticmaalnaa dx baan dhihi dx over dx c baan dhahayaa constantiga c waa 4 ka x baan dhihi intaas marka hore intaan soo heli c baan dhihi marka intaas soo helo sidii aan soo dhiganay kabacdi ayaan ku dhufanayaa sidana markaan
x to the power of 7 kaan kasoo shaqeeyo yaan kana ku dhufanayo waa markuu close yahay waad fahtaan umaleynaya iyo su-aashiina kusoo noqona over dx maxaan dhahayaa 4 baan haystaa x to the power of 7 maxaan dhihi marka horeysa 4 ku waa sidiisii soo qaad waa c buu u taagan yahay constantigi weyn door soomiya haye 4 d over dx x to the power of 7 kanaan yareynaya maxaan dhahayaa ku dhufo waxaan inta maxaan haystaa 7 baan haystaa marka maxaan dhihi 7 x to the power of 7 minus 1 baan dhahaya haye waa 4 times 7 x to the power of 6 baan dhahaya isku dhufo labadan waa 8 iyo 20 x to the power of 6 baan soo helay waad fahantaan umaleynaya markuu xidhan yahay qaabkana looga shaqeeyaa waad fahantaan umaleynaya haye u fiirso haddaan dhaho d over dx oo derivative 8x to the power of 4 and 8x to the power of 4 maxaan dhahayaa qaacidana baan isticmaalaya marka ugu horeysa maxaan dhihi haye labadan xabo waa laba jeer yaa kana waa mid kale kaa maxaan dhihi maxayna 8 times d over dx oo derivative haye x to the power of 4 haye maxaan haystaa waa maxayna waxaan dhihi 8 times 4 x to the power of 3 waan soo fahnima waan kala jarana 4 ka jar hal waa 3 isku dhufo waa 32 x to the power of 3 bes waa taas inta ayaan helnay su-aasha labaad u fiirso d over dx baa layidhi 5 x to the power of 6 baa laysiiyey maxaan dhahayaan 5 times d over dx oo derivative haye x to the power of 6 kana markaas soo sheegay maxaan dhahayaa maxaan dhihi marka hore waa 5 times 6 baan dhahayaa 6 x to the power of 5 baan dhahaya waan soo kala jarana hal maan ka jarana haye isku dhufan labadan waa 30 x to the power of 5 baan dhahayaa 30 x to the power of 5 x to the power of 5 intaasaan helnay waad fahantaan umaleynaya u fiirso haddaan dhaho dx 9 x to the power of 5 aan dhaho maxaan dhihi wuu xidhan yahay adiga arkaya waxaan dhahay maxaa dx 9 baan dhahayaa 6 intana marka hore waa laba jeer baan qoray maxaan dhahayaa markaas kusoo dhufo waa intan d over dx haye x to the power of 5 baan dhahaya kanaan maxaan dhahayaa waa 9 times 5 x to the power of 4 baan dhahaya waan soo kala jaray isku dhufa waa 45 x to the power of 4 ka kalena u fiirso su-aashii labaad noo fiirso ay ahayd 6 maxaan dhahay marka hore 6 sii qor d over dx oo derivative x to the power of 7 maxaan dhahayaa markaas 7 x to the power of 6 baan dhahayaa 7 x to the power of 6 halna waan kasoo jaray x ku dhufo waa 42 x to the power of 6 bes waa inta waad fahantaan umaleynaya halkan waa real matters barefad usguul assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu